Alle wuu ogyahay inaad murugaysan tahay oo aad waxaad samayso garan laadahay walwal iyo walbahaar aad dareemaysid. Alle wuu ogyahay in adduunka oo dhan cidhiidhi kugu noqday oo aad dareemaysid culays sida in adduunka oo dhan dushaada la saaray. Alle wuu ogyahay in lagu dulmiyey oo lagugu xadgudbay, qalbigana ku xanuunayo. Alle wuu ogyahay in lagugu leeyahay deyn oo maalin walba aad ka fakarayso deyntaas iyo sidaad u dhiibi lahayd. Alle wuu ogyahay inaad xanuunsan tahay, mar walbana kugu siyaadaya xanuunka. Alle wuu ogyahay inaad weyday hooyadaada, carruurtaada, xaaskaaga, gurigaaga, shaqadaada iyo waxbarashadaada. Alle wuu ogyahay inaadan weli guursan oo aad dareemayso duruuf dhanka guurka ah, ama aad tahay qof aan weli carruur dhalin. Alle dhammaan wuu ogyahay. Alle ma doonayo inaad murugootid, laakiin waxa uu kuu muujinayaa ayaa ah si aad isaga gacmaha ugu taagato. Wuxuu rabaa inuu maqlo codkaaga si uu dhibaatooyinkaaga oo dhan kuugu beddelo farxad, xanuunadaada oo dhanna caafimaad, ilintaadana dhoola-caddayn, riyooyinkaagana kaaga dhigo kuwa rumooba. Dhibaatadaada si walbay u weyn tahay, waxaad haysataa Alle weyne oo kaa saaraya dhibaatadaas. Culays waxaa ka dambeeya fudayd. Waa ballanqaadkii Alle in culays uu ka dambeeyo fudayd. Hadday maanta kaa xun tahay, berri way ku wanaagsanaanaysaa. Maanta haddaad faqiir tahay, berrito waxaad noqonaysaa taajir. Maanta haddaad gaajoonayso, berrito waad dhargaysaa. Maanta haddaad xanuunsan tahay, berri waad caafimaadaysaa. Maanta haddaad dhibaatoonayso, Ilaahay ayaa berri kaa fudaydinaya. Adigu ha noqon mid ka quusta. Way imaan doontaa ballanqaadkii Allah, keliya waqti yar bay u baahan tahay. Dhammaan riyooyinkaaga way rumoobayaan, shayna ma soo daaho. Ilaahay baa shay kasta u doora waqtiga uu ku habboon yahay ee ha quusan adiga. Waxaa laga yaabaa in Alle shay qurux badan kaa dib-mariyo si uu kuu siiyo wax ka sii qurux badan. Maxaad u murugoonaysaa iyadoo iskudaygaaga iyo farxaddaada ay ka qurux badan tahay murugadaada iyo guuldarradaada? Maxaad u murugoonaysaa iyadoo waxa soo socda ay ka qurux badan tahay wixii tagay? Maxaad u murugoonaysaa asagoo Rabbigaaga kaaga naxariis badan yahay hooyadaada ku dhashay? Maxaad u murugoonaysaa iyadoo culays walba uu ka dambeeyo fudayd? Maxaad u murugoonaysaa? Xanuunka waa laga caafimaadi, dhibaatadu way dhammaanaysaa, dunuubtu waa la dhaafayaa, deynta waa la bixinayaa, qofka maqan wuu imaanayaa, qaladkana waa la saxayaa. Maxaad u murugoonaysaa iyadoo risqigaagu ay qoran tahay, noloshaaduna ay kooban tahay? Maxaad u murugoonaysaa? Rabbigaaga hadduu doono shay, wuxuu dhahaa noqo, wuuna noqonayaa shaygaas. Maxaad u murugoonaysaa? Waxaad leedahay 2 indhood oo aad wax ku aragtid, 2 dhagood oo aad wax ku maqashid, 2 lugood oo aad ku socotid, 2 gacmood oo aad wax ku qabatid, meel aad seexatid, maskax aad ku fakartid, qalbi aad wax ku dareentid. Haddii aad tirisaan nimcada Rabbi, ma soo koobi karaysaan.